runtii maanta aad baan faraxsanahay saxaafaddu marka hore waa mahadsan yihiin farxadayda lama soo koobi karo waxaan u mahad celinayaa jaamacadda bariga afrika gudoomiye doctor cabdilaahi cabdisamed cali xasan marka labaad waalidiintay oo runtii aad barnaamijka waxbarashada igala soo qayb qaatay oo hooyaday qaali xawooda waa ay igu garab taagneed oo aniga xaaskayga runtii aad baan ugu mahadnaqayaa asxaabtaydii iyo dhallinyaradaydii waa mahadnaqayaa waxaanan ilaa weynin oo aad ugu mahadnaqayaa xaaskayga qaaliga faadumo oo runtii waxbarashada 4 sano soo wadnay nagala qayb qaadatay aniga caruurtaba inaan maanta halkaas soo gaarno oo iyadu runtii iga dadaal badnayd oo juhdi badan ku bixisay runtii aad baan ugu mahadnaqayaa lamaanayaasha sidoo kale waxaan fariin u dirayaa inay jaaniskooda ka faa'iideystaan oo waxbarashadooda ay iyagoo reerkoodii iyo shaqadoodii wixii wata ay dhamaystirtaan baan ugu dardaarmayaa oo xafladda maanta ka nabad galay wiilkayga iyo xaaskiisii ayaa ka qayb galay xafladdan maanta waxaan u hambaleynayaa asxaabtii iyo intii ka soo qayb gashay iyo intii qalin jabisay iyo intii cuqaashii iyo culimadii nooga soo qayb gashay ayaan ugu hambalyeynaya alxamdulilaahi rabbil caalamiin hambalyo maanta halkan waxaan ka soo qayb galnay xafladda jaamacadda bariga afrika ay nooga qalin jabinayeen walaalkay iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa oo ka soo qayb galay xafladda hambalyo baan leenahay baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno maanta oo xafladiisa aan joogno qalin jabinta isaga iyaga awlaadoodii iyo caruurtoodii wata aad iyo aad baan ugu hambalyeynay hambalyo qoyskii waare ee raagan Allah idinka dhigo waxaan leeyahay golaha jaamacadda dadka macnaha isla caruurta idin xanimay oo kale caruurtu iyagoo idinka caruurihiina wata ayaa jaamacadiina dhameyn kartaan qoyskana waxaan leeyahay waa qoysku doosho mudan in lagu daydo ay muhiim tahay marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay walaalka iyo xaaskiisa aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay xafladiisa ka soo qayb galo waadna mahadsantihiin